wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Somaliland ayaa maanta kulan la yeelatay barasaabada iyo sidoo kale mayrada gobolada Somaliland. kulankan uu shirgudoominayay wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Somaliland mudane Maxamed Muuse Diriye ayaa ka qabsoomay xarunta dhexe ee wasaaraddaasi taas oo shirka lagu lafagurayay sidii barasaabada iyo mayrada uga qayb ahaan lahaayeen dadaalada ay xilligani wasaaraddu ee qabashada biyaha roobka kaasoo loogu magac daray gacmahaaga biyo kaga dhereg. kulankaasi ayaa sidoo kale lagu falanqeeyay sidii wasaaradda iyo gobolada dalku iska kaashan lahaayeen dadaalka biyo dhaamiska ee deegaano ka mid ah Somaliland oo biyo yaraan soo foosartay. agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland Maxamed Xasan Dirir oo shir jaraa'id oo ay si wada jir u qabteen barasaabada iyo wasaaraddu ka hadlay ayaa kulanka ay la yeesheen barasaabada iyo mayrada dalka tilmaamay. maanta oo ay bishu tahay 14 February sanadka 2021 waxaa wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Jamhuuriyadda Somaliland oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaraddu xarunta wasaaradda ay shir kula yeelatay gudoomiyaasha gobolada dalka iyo maayarada dalka magaalooyinka waaweyn ee dalka. wasaaradda iyo gudoomiyaasha iyo maayarada dalku waxa ay ka shireen dhowr qodob iyo marxalado dalka ka taagan. waxa lagu jiraa waqti jiilaal ah oo biyihii aynu haysanay sii yaraanayaan, marxalad adag oo dadka reer miyiga ah iyo magaalooyinkaba soo waajahaysa, gaar ahaan dadka miyiga ku nool. waxyaabaha aanu ka shirnay waxa ka mid ah waqtigan adag ee jiilaalka ah iyo abaartan in biyo dhaamis xoog leh laga sameeyo deegaanada kala duwan ee dalka. hay-adaha wasaaradda ka barbar shaqeeya iyo wasaaradda iyo xukuumadda iyo gudoomiyayaasha iyo maayaradu inay iska kaashadaan sidii inta suuragal ah deegaanada iyo dhulka reer Somaliland dadkiisu ku nool yihiin loo gaarsiin lahaa wixii awooddu ina tiraahdo ee biyo dhaamis ah. kaas waa qodobka koobaad ee aanu ka shirnay. qodobka labaad waxa weeye hawlgalka gacmahaaga biyo kaga dhereg oo ay muddo waday wasaaradda horumarinta kheyraadka biyuhu oo ah inaynu ka gaashaamano hadda wixii ka dambeeya biyo la'aan ama biyo yaraan dadkeena iyo dalkeena soo waajahda. hawlgalkaasoo wasaaraddu shaacisay in ay doorkooda iyo awooddooda ku biiriyaan gudoomiyayaasha gobolada dalka iyo maayaradu oo ay bulshooyinkii deegaanada kala duwan ee Somaliland ku noolaa wacyigelinta gaarsiiyaan, ku abaabulaan in inta suuragala dadka Somaliland ay samaystaan kaydad biyood oo lagu qabsado biyaha roobka si biyaha nambarka biyaha aynu haysanaa u kordho sanadka dambe haddii aan la yiraahdo abaartan oo kale iyo biyo dhaamiskan oo kalena aynu uga badbaadno ama aynu u yareyno baahideena. intaas baanu ka shirnay. waxaanu uga mahadnaqaynaa gudoomiyayaasha iyo maayarada dalka sida ay ummadooda ugu heelan yihiin iyo dadaalka ay ku jiraan. waxaanu ka faa'iideysanay maadaama oo ay magaalada Hargeysa dhammaantood isugu yimaadeen inaanu shirkan halkan kula gallo. ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa gacmaheena wada jira inay ummadda Somaliland biyo ku filan siiyaan haddii aan la yiraahdo. barasaabka gobolka Maroodijeex Jaamac Xaaji Axmed oo afka barasaabada ku hadlayay ayaa tilmaamay muhiimadda ka faa'iideysiga biyaha roobka oo diyaar yihiin inay bulshada ku baraarujiyaan. shirkan ka qabsoomay wasaaradda horumarinta biyaha oo ay hogaaminayeen wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha iyo agaasimaha guud oo ay ka soo qayb galeen gudoomiyaasha gobolada dalka iyo maayarada. runtii waxaa la iskaga xog wareystay baahida biyood ee dalkeena ka jirta, gaar ahaan waqtigan jiilaalka ah oo ay biyo la'aani soo food saartay dalka sidii looga tashan lahaa ee ummadda biyo loo gaarsiin lahaa. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wasiirka iyo agaasimaha guud iyo howlwadeennada kale barnaamijyada qiimaha badan ee ay soo bandhigeen. qodobka labaad oo ah barnaamijkii wasaaraddu ay daha furtay ee ahaa gacmahaaga biyo kaga dhereg oo runtii ah barnaamij aad iyo aad u qiimo badan oo ummaddeena iyo dalkeena anfacaya. biyo badan oo roob ayaa ina dhaafo sanad walba oo badda gala oo runtii inaga dayacma. biyaha magaalooyinkuna way u baahan yihiin inay kaydsadaan, miyigana waa looga baahan yahay. qorshe fiican bay wasaaraddu soo bandhigtay in biyaha la qabto oo dadka reer miyiga ahina ay kaydsadaan oo ay sameeyaan meelo biyaha ay ku kaydsadaan. guryaha magaalooyinkana biyaha loo samaysto barkada lagu kaydiyo. runtii faa'iidooyin badan ayuu barnaamijkaasi leeyahay.
waxaan ku wacyigelinaynaa bulshadeenna in miyi iyo magaalaba wasaaradda la isku garab taago sidii barnaamijyadaasi ay u hirgeli lahaayeen annaguna haddaanu nahay guddoomiyaasha gobollada iyo mas-uuliyiinta gobollada maayarada iyo guddoomiyaasha gobollada waxaanu idin ballan qaadaynaa wasaaradda horumarinta biyaha inaan isku garab taagno barnaamijyada ay hirgelinayso ee wax ku oolka ah ee faa'iidadu ay ugu jirto dalka iyo dadkaba maayirka magaalada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo afka maayirada ku hadlayay ayaa tilmaamay inay soo dhaweynayaan una diyaar yihiin gobolladoodu inay gaarsiiyaan ka faa'iideysiga biyaha roobka si looga gaashaanto biyo yaraanta bulshada soo wajahda nuxurkii hadalka intii uu ahaaba barasaabka Hargeysa ayaa sheegay anigu kelmad qoran ku daraya arrintan waa barnaamij aad wanaagsan runtiina anfacaya dadka barkadaan la samaynayo ayuumaan ka hadlaya anigu barkadu waxa weeye u baahan yihiin aqoon intaynan wacyigelintan dadku aynu markaynu gaadhsiino waxaynu u baahannahay farsamo yaqaanadii si aan loo khasaaroobin hawshan fulin lahaa taasaa very important haddaynu meel qodno oo barkadii si khaldan ugu dhacdo ama si aan cilmiyeysnayn dib baa lagu khasaaroobaya markii dhaweed ay noo sharxayeen qolada wasaaradduna waxayna tusayeen sidii jaranjaradii meeshii ciidda reebaysay meeshii wasakh reebaysay meeshii biyaha nadiifta ay ku dhacayeen arrintaasaa muhiima wasaaraddu waa inay iska saarto xil gaara oo markaynu arrintan iminka dadku uu maqlo insha allah uu qaadanayaaye ciddii kari kartaaba way ku dhaqaaqi doontaa laakiin cilmigii iyo aqoontii wasaaraddu xil gaara iska saarto arrintaa iyadaa وخالد يوسف حسن فانتاستيك تلفزيون اريالا مقالة عاصمة سوماليلاند هرقيسة